الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وكلنكي أما حلقدي فردي سدحات إن كجهل ليني سنة جوردا ama bandhigiyo xafladaha sanad waliba xilligan oo kaleeto loo qabto xuska nabiga sallallahu alayhi wa sallam. labadii habeen hore waxaynu ka soo hadalnay ama xalaqay hore bidcada iyo sunnada iyo bidcada ahkaamteeda iyo maxabada iyo jacaylka nabiga sallallahu alayhi wa sallam. caawana waxaan hore u soo sheegnay inaan ka hadli doono laba arrimood waxaynu ka gaarno oo inuu habeen dambe dhamaystiri doono haddii wax naga haro. masalada koobaadi waxaa weeye taariikhda uu soo bilowday xuska iyo sanad guurada bandhiga loo samaynayo bishan mawliid iyo xuska nabiga sala allahu alayhi wa sallam. masalada labaadi waxaa weeye markii xuska la qabanayo guud ahaan innaga soomaalida gaar ahaan maxaa la akhriyaa waxaynu soo bandhigi doonaa kitaabkii barsanjiga ahaa oo midka aad aragtaana baynu qiraa'a ku samayn doonaa. bal maxaa ku yaalla meeshan waa kankii la aqriyi jiray. innaduna waxaynu aqrinaa barsanjiga iyo deybiciga. barsanjiga dheer, deybiciguna waa in yaroo aakhirka iyo gadaal kaga taalla wey. bal meesha maxaa ku qoran? af carabi baa la quruuxiyaa oo la didiyaa. waxaan la aqriyayaa muxuu yahay? ma wax diinta ku banaanba mise waa wax sidaa ka duwan? wax badan baad ila arki doontaan caawa insha allahu tacaala. si kale waxaan dhihi karaa caawa intii horena horu dhac bay ahayd, haddana caawa hoos baynu u soo daadegnay. masalada koobaad, mawliidku goor buu bilowday. culimmada muslimiinta ee wax ka qoray aragtiday dooniba ha ka qabaane ama iyagu markaa ha u arkaan inuusan dhib lahayn haddii waxyaabaha qaarkood laga daayo, ama inuusan bannaanayn ha u arkaan oo masalada ugu dambaysa ee xukunka ka hadlayna ha ku qaybsanaadaane mid bay isku raacsan yihiin in xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo afartii qarni ama saddex qarni iyo badh 350 sano oo ugu horreyso hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadda muslimiintu dacalla iyo daafaha inta ay joogtay inaan wax xus iyo sanad guura ah la aqoon jirin, aynan dhicin. intii nabigu noolaa ma dhicin, intii khulafadu noolaayeenna ma dhicin. dowladdii reer bani umaya 40kii soo bilaabatay ilaa 132 dhammaatayna ma dhicin. waxaa kaloo ayna dhicin dowla alcabaasiya qaybaheedii hore inta ay xoogga lahayd. waxa ugu horeeyo ee xuska la sheegay taariikhda hijrigu markay ahayd weeye 362. culimo marka waxay marar badan yiraahdaan ay sheegaan xuskii ugu horeeyey ee xaflad iyo munaasabad la qabtay waxay ahayd bishii mawliid 362 hijradu markay ahayd. culimmada qaarkoodna waxay tilmaamaan maya, xilligaa ma bilaabane wuxuu bilowday xilli ka dambeeyey oo 200 iyo waxoogay sano kadib ah xilligaas marka laga soo bilaabo. taariikhda xilligaa dambe culimmada qaar ay sheegayaan taxdiid zaman iyo sanad go-an ma sheegaan, laakiin waxay sheegaan ninkii sameeyey. ninkaana waxaa la yaqaanaa xilliguu xilka iyo guddoonka iyo maamulka meesha uu ka sameeyey qabtay. xilliga uu qabtay baa wuxuu ahaa 586 hijradu markay ahayd ilaa 630 buu hayay. muddada inta u dhaxaysa bay ahayd oo ama dabayaaqadii qarnigii 6aad ama horaantii qarnigii 7aad bay ahayd. labada eray way waxa la isku hayo. muddadaasay u dhaxaysaa
haddaynu niraano ilaa dabayaaqadii qarnigii lixaad macnaheedu 600 oo sano taariikhda muslimiinta sanad guura mawlid iyo xaflad iyo xus lama aqoon 600 ee sano u horeysay ama wax yar baa dhimanaa ama wax yar baa dheeraa labada qaybood bay culimadu leeyihiin waxaa kamid ah aqwaashooda ninka la yiraahdo al-Hafiz al-Imam al-Muhaddith al-Mu'arrikh Ahmad ibn Ali al-Miqrizi al-Shafi'i وفقهاء الشافعية ذا كمدها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه نعيسك الزمن أهايين عقيدتنا وحوليه كتاب التجريد تجريد التوحيد كتاب الرسالة يرى الإرادة إسكاله فقه الشافعي أنا كتاب كان أذك الإرشاد لإرادة نينك قرية إرشاد كان مختصر كشافعية ذا الله خريسته الرياضة كوب كوبانو وحسو أروري سيادو كوبان الحاوي للماوردي بسوء اختصار runtii aad u adkaa laakiin culimada fuqahadu aad ay u amaanaan ay jecel yihiin wuxuu aad caan ugu yahay masaailka taariikhda kitaab wuxuu leeyahay la yiraahdo kutub badan buu leeyahay waxa kamid ah al-mawaa'id wal-i'tibar bidhikri al-khutat wal-athar kitaabka juska 490 wuxuu ku leeyahay wuxuu bilowday xilligii nimankii faatimiyiinta ama ubaydiyiinta la dhihi jiray masar ay qabsadeen isagoo arrimaha tilmaamaya wuxuu yidhi kaana lilkhulafaa'i alfaatimiyiina fii tuuli الsanati acyaadun wa mawaasim nimankii khulafadii faatimiyiinta ama ubaydiyiintu sanadka oo dhan sanad guurooyin iyo xusas isdaba joogay lahaayeen waxaa ka mid ahaa mawsimu ra'si sana maalinta sanadka u dambeeya dabaaldeg bay samayn jireen وموسم أول العام ما أنت سند كبلوغ يهينا دبال دق بي سمين جرين ومولد ويوم عاشوراء ما لك محرم طبعا كتهاي مقتل الحسين لدلينا بندق يا سند قوري سمين جرين ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي على الشدي سينا حس يا سند قوري سمين جرين ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه دلشدي علينا سند قوري حسب أسميا ومولد الحسن حسن بن علي دلشدي سينا إيانا سند قوري أسميا ومولد الحسين رضي الله عنه اسنا حسين بن علي سند قوري دلشدي سي أسميا ومولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حسي سند قوري أسميا ومولد الخليفة الحاضر نك مركا حلقة حونك هايستا دلشدي السنة مالكو دشينا حسنة قورا لو سمين جري وحو شيغي سغال مولد بمناسبات iyo sanad guuray sameeyeen oo sanadka dhan oo wareegaya nimankaasina ninka kale culimadu ay sheegayaan in tilmaami doono dawladoodii markay dhamaatay oo 210 sano jirtay kadib buu maamul qabsaday waxa sidoo kale warka qaba ninka la yiraahdo qalqshandi كتابك الرسالة كتابك اللي يراد دير أجزاء بدن أدبك اللي يراد صبح العشاء في صناعة الإنشاء دور يتون مجلد وين نكا يسوي حليه مجلد كصدحية طبنات أفر بقول سقاشن يسديد وحكوليه فاطميين تمركوا كهلا يسقنا جلسات يسند جروين بيقبن شرين حليه الجلوس الثالث فرق الصدح هذا يقبن شرين بندقة وحوها جلوسه في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حسك على شذا النبي وفريسن ترينك خليفة في 12 مالك اللبية تبنات من شهر ربيع الأول بش مولد لبية تبان كذا وفريسن تريه بالحسكاس محل سمين تريه مركو حسك وفريسته وكان عادتهم فيه رقم كذا عادة ذو وحياه بندقاس أن يعمل في دار الفطرة 20 قنطارا من السكر الفائق سنكرت آذو في عن باللباتن قنطار ووين بالسمين شري مركاسة وحال الديارين تريبري وتعبوا 300 صينية نحاس سدح بقوله الصحن أو ماركسة ما يسمى لقبو حنشري فإذا كان ليلة المولد هبينك مولد كهدير لقارو تفرقوا في أرباب الرسوم
xilalka dawladda dadka u hayaa loo qaybin jiray ka qaadi alqudaati wa daaci ducaati wa qiraa'ati alxadrati markii la xadraynaya ninka meeriye iyo ninka ducaadda mas-uulka iyo ninka qudaada madaxa ka iyo baa loo qaybin jiray si ay meelaha dadka fadhiyada ugu yeeraan ninkii lahaa masar joogi jiray muftigii fuqahaa alxanafiya fi misr الفقيه العلامة اللي يرى محمد بن بخيت المطيعي يسوي كتاب قريب وحوليه مما أحدث وكثر السؤال عنه وحيابها قذال كي يمد سؤال شو أي بضطي صار نقطي وحاكم إذا الموالد مولدك فنقول وحنولين هيبوي إن أول من أحدثها بالقاهرة قاهرة قفك يقول ريا كسمية الخلفاء الفاطميون وي وأولهم المعز لدين الله نكل اللي يشتريه خلفاء الفاطميين تو وحي ردان إذن كتل معه ودولة لمن باطنية أهاوي علماء المسلمين تو إنه قالاء هاي إنه يكون إجماعين مركي وهو الرئيسي بني عبيد نوال إلى يقع فاطميين لبحي وآل البيت كي يكون عبتل سنة كذبا وزورا علماء المؤرخين تانا واتفاق إنه نصر فاطمة مال لك قلين ديني عقيدة أهان إسلام كان وحبا مانا يكرم إسنين لكن آل البيت كي يتشعريه تشيع بين موجسان جيرين قرامطدي عراق لولاد دغالمي iyo bariga wadanka Sacuudiga la yiraahdo ihsaa'iyo bay farcoodi ka soo jeedaan oo Banu Ubayd al-Qaddah baa la yiraahdaa markii laga adkaaday kala firxadeen baad qaarkood Yaman u firxaday halkaas ay wax ka aasaaseen Ubaydillah al-Mahdi ninkii la dhihi jiray baa tagay mahdigii muntadarka ahaa baan ahay buu ku yiri dadka rusushiisii baa tagtay isagii waa tagay khilaaf baa ka jira kadibna ragiisii qaar baa maghrib al-arabi tagay wadamadan hadda Jazaa'ir iyo Tunis iyo Morocco iyo halkaas ay dawlad ka aasaaseen qabaa'ilkii xaggaas u wareegay dawladoodii halkaas ay ka dhalatay maghrib al-arabi oo dhan bay qabsadeen marka laga reebo magaalada Sabta la yiraahdo oo nimankii dawladii reer Bani Umayya wadamadan Spain iyo Portugiiska ka jirtay ee Andalus ka jirtay u hartay marka kadib المعز لدين الله بهجان أها قصر خلافته هنا في أرض المغرب والجزائر بيهاجرتي نكاسا قيادات كيسي صدر نين جوهر لديه جري جوهر وقائد وهابا حلقا وحاد انتي دولة العباسية اسكا ضعيفتو ولاد كلا قوستين بانيكي مصر هيستي با حلقا انتي سيبو أمر كسيي إنو مصر وجهيستو ninkaasaa masar wuxuu gacanta ku qabtay qaa'idkooda ahaa 357 mise 58 labadaas ay mu'arrikhiintu isku hayaan marka kadib buu isaguna soo diray fariimo ah in la dhisay magaalada Qaahira al-mu'izz li diinillahi xilligiisi baa la dhisay magaalada Qaahira la yiraahdo magaalada Qaahira markii la dhisay isagu wuxuu yimid sanadkii 362 قاهرنا وحو سو غلاي شنتي بشي رمضان 362 هجرده markay ahayd yu al-mu'izz li diin Allah soo galay قاهرة إذا بشي ربيع الأول ونفس السنة أنا مناسبة مولد qabtay marka munasabada mawlidka marka lagu yiraahdo 362 buu mu'izz li diin Allah ku qabtay قاهرة isagu bishii Ramadan buu soo galay imisa u dhaxaysa shantii Ramadan شوال ذي القعدة ذي الحجة محرم صفر ربيع الأول تضرب بلود بمركز شوقان سوى تضرب بلود لبيه طبعا كهدين ونراهننا تضرب بلود إيو تضرب مع الموت بتشوقان ما نك تضربات بوحيون نقنا يسا لبيه طبعا كربيع الأول المعز لدين الله مركز وحل جاء سكنتني السجال كي إلى اللحد يكودين قاهرة إياه لدسي ودسمه قاهرة على كل حال ننكاس بعد وأولهم المعز لدين الله باب الله ويقول كذب الخلفاء ذيك رؤوس ورجال مقالة القاهرة وحاقر أن اللي الدكتور حسن إبراهيم السندوبي كتاب لي تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي بتاريخ يسود دبقال كسمي وحوله يسبوا لقد دلني البحث والتنقيب والتحري والاستقصاء
waxay tustay buu yidhi dabagalkaygii raacraacaygii mawliidka iyo taariikhdiisaan dabagelayay calى ana alfaatimiyiina huwa awalu man ibtadaca fikrata alixtifaali bidikri almawlid الnabawiy الshariif kow wixii bilaabay ee fikraddaa keenay nimankaasi ahaayeen wajacaluuhu min alacyaadi alcaamati fi kuli ummati min alumam alislaamiya intay maamulayeenna ciid guud iyo fasax guud bay uga dhigaan dadka o dhan keligiina ma ahayne ciida sanadeedyad fara badan bay sameeyeen buu leeyahay doctor xasan ibraahim isandubi safxada kitaabkiisa alixtifaal taarikhu alixtifaal bilmawlid الnabawi safxada 62 baad ka helaysaa hadalkaas culimada qaarkood iyaguna waxay itlaaqeen xilligaa kadib inuu bilowday oo taan tilmaano aakhirkii qarnigii 6aad ama horaantii qarnigii 7aad ama taxdiidan 586 ilaa 630 inta u dhaxaysa ayuu bilowday bay yiraahdeen ragga sidaa qaba waxaa ka mid ah qayb walba tusaale waan ka soo qaadanaynaa ninka la yiraahdo Jalaaluddin Siyuuti risaalo uu leeyahay kitaabkiisa al-Hawi fi al-Fatawi ku jirta oo la yiraahdo Husn al-Maqsad fi amal al-maqsid fi amal al-mawlid uu kuleeyahay baa jira waxa uu ka qabo xukunka markaan ka hadlayaan culimada dhamaantood soo guurin doona hadii la yiraahdo isagu wuxuu leeyahay al-Hawi fi al-Fatawi jiska 189 bay kaga taale jiradka weyn ee fataawadiisa awwalu man ahdatha fi'la dhalika al-ihtifal bil mawlid qofkii ugu horeeyay oo xaflada u qabta oo arinta keena mawlidka nabiga saaxibu irbil way al-malik al-mudaffar abu sa'id كوكبر بن زين الدين بن علي بن بكتكين أحد ملوك الأمجاد والكبراء الأجواد ننكاسي أبو سعيد ليراهدو وحوها بقرطيوينكي يريرا شامي عراق كتشرشري يا ولاد الدولة العباسية نحلك هذه قيب ستي منا أنا آدوه استجشرين دولة الفاطميين السلام ماشي أبيه زين الدين baaba ka ahaan jiray dhulka oday kadib markuu waayeelay buu maamulkiisii niman ataabi ka ahaa goboladii u qaybqaybiyey wuxuu la soo haray magaalada Irbil buu la soo haray haddii aabihii dhintay 563 hijradu markay ahayd isagu markaa 14 buu jiray meeshii buu qabtay nimankii gobolada lagu wareejiyey baa waxay dacwad bay u maleegeen waa laga tuuray waana la xiray 14 jir wax ma maamuli kara leeyahay laakiin walaalkii oo ka yar bay u dhiibeen oo Yuusuf la yiraahdo isagii waa yar ma maamuli karo kii ka yaraaba loo dhiibayo nin mujaahidiin la yiraahdo ragga madaxda ah isaga isku dhaceen kadib markii ay dawla al-Fatimiyya la tuuray Salaahuddin al-Ayyubi uu ka qaaday goboladii dawladda uu mideynayay raggii hogaamiyaasha ahaa ee dagaalka la galay ciidankiisa raacay buu kamid ahaa goboladan Harraan iyuu dhiibay walaalkiina Irbil baa loo dhiibay oo loo daayay kadib iyadoo dagaaladii lagu jiraa walaalkii baa dhintay ninkii Yuusuf yaraa baa dhintay isaga wuxuu dalbaday deedna war meelahan kale Salaahuddin oo cid kale ku wareejiyo aniga meeshii duqeydii reerku joogi jireen Irbil ahayd igu celi intaanu ku celinna way xidideen oo wuxuu guursaday Abu Sa'id Kokbari Salaahuddin walaashii buu guursaday oo nin hore ka dhintay walaashii buu guursaday markii seedib uu noqday Salaahuddin markii uu dawla al-Fatimiyya ka takhalusay xafladihii munaasabaadkii sanadka tariye mawlidka waa joojiyay ninkan xilka wuxuu u dhiibay bishii Dhulhijja 586 markay ahayd baa xilka loo dhiibay sanadka dhamaaba 87 buu la kawsaday 630 kiina waa dhinto isaga ka dambeeyay Salaahuddin rahimahullahu ta'ala sadarteed bay culimadu waxay yiraahdaan Salaahuddin al-Ayyubi markuu Faatimiyiintii ka takhalusay mawlidkay qaban jireen wuu wada joojiyay caashuradii buu joojiyay mawlidyadii Ali iyo Xasan iyo Xuseen oo dhan buu joojiyay kan muxuu ga jooji waayay ama uga celi waayay arinta laba aragti bay leeyihiin waxa la yiri qaar ma cadda inta Salaahuddin noolaa inuu sameeyay
lan isagaas ninka saaxiib Erbil baa dambeeyay iyo gadaashay inuu dambeeyay inuu sameeyay lama cadeyn karo maadaama muddada 86 ilaa 30 waa 45 sano gudahood lama kala cadeyn karo qaarna waxay yiraahdeen maya war ninka saaxisana way isugu fiicnaa dagaal badan bay soo wada mareen xogay seedinimada waa jirto waa ka yar xishooday baa dhici karta way ala kulli xaal isla ra'yigaas uu qaba Siyuuti uu saa u tilmaamay waxa isla ra'yiga qaba kadib ninka la yiraahdo al-Allaama Muhammad Rashid Rida risaalada uu leeyahay dhikr al-mawlid an-nabawi isaguna wuxuu leeyahay in al-ihtifala bil mawlid an-nabawi ash-sharif qad sara 'aadatan 'aamma 'aada 'aam ay noqoto ummadoo dhan samayso wal mashhuur sida caanka أن المحدث لها نك ابتداعية كاني هو أبو سعيد كوكبر بن أبي الحسن علي بن بكتكين التركماني الجنسي الملقب بذلك بالملك العظيم مظفر الدين صاحب إربل أحدثها في أوائل القرن السابع أو أواخر القرن السادس طبعا قضي قرني اللحاد أما هرانتي قرني تضبات بوكاني فإن السلطان صلاح الدين الأيوبي والله على إربل في ذي الحجة سنة 580 ذي الحجة سنة كي شنب قولي سديتنكي الهتان كي محمد شيخ رضا وهمي وهي سيدا أي شيغان مؤرخينتو سيدا ابن خلكانيو إيا غير كيبا أي شيغان سنة كي شنب قول سديتني اللحي بشا ذي الحجة هي إساقنا وحورنا شيمالين ثلاثة تضوية لواتنكي بشي محرم شن بقول أفرتن يسقال كيجرد مركا هيد بودا شيء لمشهد يسون اللح بقول يصدن كيجرد مركا هيد بهيد صاحب يربل كان شيء جيا لبدا قول بيع علماده وقيب سيهين قلت على صدح بقول لحدن يلا وادي بو باللودي يكوير هذا مايا شن بقول يلحدن يزديتن يلحدي انت كدن بيسي ودماتكي قرنقي اللي حدا مهرانتي قرنقي تضوادا أيوب باللودي تاريخان لبداس لو قيبسن yahay culimada qaar baa isku dayay in labada qowl isu keenan oo isku soo dhaweeyaan waxa kamid ah ninka la yiraahdo culamaa al-Azhar kamid ah Sheikh Ali Mahfouz ee iskale kitaabka la yiraahdo al-Ibda' fi madar al-ibtida' masaladan markuu ka hadlayay safxada 251 wuxuu leeyahay awwalu man ahdathaha bil qahirati qahira qofki koobaad ee bilaadadki bilaaba al-khulafa' al-fatimiyun fi al-qarn ar-rabi' قرن اللحاد أفراد بفاطميين باللابن فابتدعوا 6 موالد لح مولد بيسميين المولد النبوي ومولد الإمام علي ومولد فاطمة الزهراء ومولد الحسن والحسين ومولد الخليفة الحاضر لحذا مولد بيسميين وبقية الموالد على رسومها سيدة ذي هانجرتي إلى أن أبطلها الأفضل أمير الجيوش الأفضل أمير الجيوش مرنا ابن أمير الجيوش اللي يراده نكاسي وحوها أبيه بأمير الجيوش اللي يشتري بدر الجمالي وحلا بدر بن عبد الله الجمالي بالي هذا أصل كيسوحو كسو تشيدا أرمينيا إساقو يرو أدونا أيا وحا صوغتين اللي يشتري جمال الدولة ونمانك فاطيين تاها طرابلس مدحو قدومية وقاها طرابلس الشرق والله طرابلس للمغرب الغرب هي طرابلس للشرق منا ومدا طرابلس كتها لليبيا منا ومدا كتها للبنان يسووا وحي أبدنا يان تن ليبيا إنوها وحي كلين طرابلس المغرب وها تاسو عن كاسا صوغتي وبربارية مرك وحكو أركي الرجال ما آذو فربضن مسؤوليات بودي بي إلى مركي دم دمشق ومرح كان نقضي مركي دم قوالله كلا الله داري يسوى أجا دمشق سفي عنه هيستا بانكي خليفة فاطمية ذاتها المستنصر بالله الذي تشري باوحا كوبا حينكو كعينين مصر تشوى أود بدن لها والذي تشري ابن حمدون نينكي بالله كرفي نينكي نينكا وراق سيسيرة وصادر صدير ورنيه مصر ولما كوبو وليتشري كان إنما كان يجا قبل معارض كيجوا مراسلات بعد أحمري فمركز جبايدي وحاكميها مستنصر وصادري وزردي سيادات كيس مسؤولين تانا موجا
waraaquhu soo diray wuxuu kollaba haddii la cunayo niyow kaala adigu cun nin la cunayaanu ekahay waa tegey ilaa 300 oo doomood ciidan raacsan oo asalkoodu arman u badan yihiin oo ku tuhunsanaa inay aad daacad u yihiin buu ka haystay markuu meeshii ka degay lama ogeyn xiriirkoodee inuu zaa'ir yahoo soo booqday baa la mooday aad baa loo soo dhaweeyey waa la dejiyey isagiiba is arkeen wuxuu yidhi dadkan anaa ka shaqayn mucaaradka oo dhane ana igu sin anaa warkoodii kuu keeni markii martiqaadkoodii dhammaaday buu isagu martiqaad weyn sameeyey wuxuuna marti qaaday dadkii guddoomiyeyaasha gobollada iyo mas-uuliyiinta ahay oo dhan buu marti qaaday ninkaa wuxuu samayn doona dhegayso martiqaadkii wuxuuna diyaariyey musqulo aada u fara badan oo kala duwan nin kasta oo dadkaa yimid ahna nin buu u xil saaray uu yidhi ninkaas booska uu hayay adaan kuu magacaabi laakiin bisharti adoon lagu ogeyn inaad qoorta ka jarto oo disho qaabkee loo qaabeeyey weliimadii marka laga dhargay ee aada loo dhargay isagiina badruljamaali waa fadhiya amiiruljuyuush buu la bixi doonaa amiiruljuyuushi ama wasiirulsayfi waalqalami baa la dhihi jiray wasiiru difaacna waa yahay qaadi lqudaadna waa yahay labada waa isku darsaday qaybtii tawjiiha diinta ahaa iyo qaybtii ciidankaa la isugu daray wasiiru sayfi waalqalam mise qalam wa sayf baa la dhihi jiray amiiruljuyuushna waa la yihahda wasiiru difaac meeshiisa wuxuu sameeyey wuxuu yidhi markii ay dhammaato de dadka haddii la dhargo oo la cabo markaa musqulaha loo baahdaa carabtuna waxay yidhaahdaan raashinka cusub eed cuntay kii horuu meesha ka saaraa markay leeyihiin idaa jaaa aljadiidu qaala lilqadiimi ukhruj min daari maa laka makaanun cindi guriga iga baxa le meesha booska maliidi markaa de hadhow waa loo baahanayaa musqulo ninba musqusha waxaa geynaya ninkii loo xil saaray nin walba musqusha uu geynayana way magacaaban tahay goortuu musqusha galana wuu dilayaa god buu ku ridayaa si ninka kale aan ogaanin dhammaan wuxuuna goormay dhici markay xafladdu dhammaato anugu waan iska kici buu yidhi oo de meeshii war hala kala nastoo musqulaha hala galaan dhihi nin kastoo musqul u baahda nin baan daba dhigaye ha geeya hana ku dilo dhammaan wuu laayey nag buu ka dhigay raggii maalinka waxaa la yidhahdaa ilaa dhowr iyo 70 nin oo umaro ahaa oo gobernatorayaal ahaa buu qoorta gooyey baasha xukunku cajiib wey ninkan shaam iyo dimishq wuxuu uga soo tegey intaa inuu meesha qoorta wada jaro si uu meesha u qabsado baalka xukunku waxay ka gaartay markii dambe gobolladii buu qabsaday wuu isku dubariday iskandariya wiil isagu dhalay oo weynaa baa ku madax adeygoo yidhi anu magaalada waan goosan ciidan xoogayna haystay wuu ku soo rogaal celiyey uu ka adkaaday wiilkii waa la soo qabtay isagaa gacantiisa ku dilay badruljamaali laftiisa gacantiisa ku dilay waa wiil ka weynaa afdalka isagaa haddaba markay 300 taqriiban 88 ahayd ayuu geeriyooday badruljamaali booskiisii waxaa loo magacaabay wiilkiisii alafdal ibnu amiir iljuyuushi wey marka qisadu halkaasay ku imanaysaa isagana waagii dambe waalida amiir dambe alxaakim biamrillahi la yiraahdaa dili doona intuu xilalkii ka xajuubiyey afdalku ahlu sunnuhu ku xisaabsanaa iyo aabihii badruljamaaliba wax markuu afdal qabsaday marka waxa laalay isagaa awoodda gacanta ku hayo dowladda maamulayay mawlidyadii oo dhan buu joojiyey marka cagtu mariyey in xoog badan awood u ahaa markii dambe markay u cabsadeen sun bay siiyeen waa la sumeeyey isna waa dhintay calaa kulli xaal marka wuxuu leeyahy ninkaa markuu yimid waa la joojiyey uma uciidat fii khilaafati alaamiri biaxkaami illaahi sanadkii 524 markay ahayd ee afdal amiiruljuyuushi laga takhallusay baa la soo nooleeyey mar labaad xaakim biamrillaahi alaamir biaxkaami illaahi wey xaakim biamrillaahi kuwii dambe wey muddaa u dhaxaysay ilaa 20 iyo dhowr 30 sanaa u dhaxaysay xilliga afdal amiiruljuyuushi uu joojiyey iyo xilliga la soo nooleeyey isagu 88 markuu qabsadayba wuu joojiyey halkaa 12 sano ah iyo 23 sano waa imise 37 sano baan mawliid la dhigin oon xaflad la isugu imanin oo laba isweydiin dee ilmihii dhashay xilligaa kadib baaba dhowr iyo 30 jiroo la halmaan dib baa loo soo nooleeyey laakiin boorka laga jafay
تاسي وطاهر. وأول من أحدث المولد النبوي بمدينة إربل الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع. كدمنا مولد كنت واسوتشري وسوليه. سلسلة وحاقب الدكتور عز العطية نيلا يراهدو. أي وحوق البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها. صفحة اللي صفحة أفر بغل سديتني يكو. مركو كمر يوحلي وأول من أحدثه بالقاهرة المعز لدين الله الفاطمي سنة 362. سدح بقول لحدا يلا بادي مركا تضوب بلادي تدبري وجوغا. احتفال كنا واسع إلى أن أبطله أمير الجيوش بدر الدين الجمالي. هل كان قابط المايو أمير الجيوش كان نكي لقب كقاتويل كيسا الأفضل ابن أمير الجيوش وي سنة 488. سديتني ومركا أبيه انت يسوق قبصده في عهد المستعلي بالله نكا خليفتها. ولما ولي الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلي أعاد الاحتفال في سنة 495. سوى ركتيه وحوق با سغاشن يشانتي تبنية سنون بابا لبوغابا. وأول من أحدث هذا الاحتفال بإربل الملك المظفر أبو سعيد في القرن السادس أو السابع. وقولك الله بعد السجنة تن إربل لوانين كان أصل كان نمان كان قاهرة شوقي باه الريوي. طيب هذا وحين لنا هاي أبو شامة المقدسي بايسنا كهالي أرنتن كتاب كيس الباعث على إنكار البدع والحوادث. كتاب كلا إلى صفحة لحية طبنات بكهالي وحوليه. وكانوا أول من فعل الاحتفال بالمولد الشيخ عمر بن محمد الملا أحد الصالحين المشهورين. وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره رحمهم الله تعالى. نكع الشيخ خاصة بالله عمر بن محمد الملا اللي يراهده نكع صاحب إربل أنا إساقو كقضى يدي مركان وركا سو أرورينه وحين لنا هي كو وحي بالله nimankii faatimiyiinta ay ahaayeen 360 iyo labadii bishii mawlid bay bilaabeen. iyaga dawladooduna waxay dhacday oo Salaaxudiin al-Ayyubi uu ka takhalusay 567. 567 buu ka takhalusay. mar dhaxdaana waa la yar joojiyay. saaxibu Irbil 20 sano xilliga kadib baa xilliga xukunka Irbil loo dhiibay. marka dawladii faatimiyiinta oo uu yaraan 20 sano ka hor dhacday bay qisadan saaxibu Irbil Abu Salmalik al-Mudaffar Abu Sa'id Kokbari imanaysa. yaa horeeyay marka nin 362 sameeyay iyo nin 586 kadib sameeyay. imisa u dhaxaysa 362 iyo waxaad kala goysaa 586 300 ku dar 562 20 ku dar muddo 220 ilaa 30 sano dhan baa u dhaxaysa. hadaba yaa horeeyay nimankii faatimiyiinta horeeyay. nimanka faatimiyiintu maxay u sameeyeen ujeedadoodu madiin bay ahayd mise mas'ala siyaasiye ahayd. mas'aladaasaan taariikhda ku soo gabagabaynayna. faatimiyiin nimanka la yiraahday culimada muslimiintu waxay ku ijmaaceen kuwa kala hadii laga soo taga fuqahada shaafiiciyada zamaankoodu isku raaceen inay niman munaafiqiin oo zanaadiqo oo mulxidiin ahaayeen. ولذلك التاج السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية مروا أرماها كهالليو بوحو إليهي وحان دمعي قبي تاريخ إنان تريو on khulafadii muslimiinta tan iyo xilligii Abu Bakar laga soo bilaabo iyo say u kala horeeyeen tix gabaya inaan tiriyo on faatimiyiintii ku soo daraan damcay waxaan xasuustay buuri aabahay Attaqi Subki rahimahullahu ta'ala eray uu waa yiri oo wuxuu yiri ninkaan nimankii amaana ama islaamka ku soo dara aakhiriya dumba uu khasaari ba aabahay yiri xasuustay markaas iska daayay. erayga waa erayga fuqahada shaafiiciyadu ay kala dhaxli jireen iyo fatwadoodu way. nimankan xoog bay muslimiinta ku haysteen laakiin islaam inay sheegtaan bay ku qasbanaayeen. intaa waxaa u dheeraa
aalubeyt bay sheegteen aynan ahayn niman qaraamito farisiyiin oo la yaqaanay ahayd aalubeyt bay sheegteen aalubeytkii dadka inay soo jiitaanna way rabaan aalubeytkii inay isku dhadhajiyaan oo isku kooleeyaanna way rabaan weligaa waxaa la yidhaahdaa markaa waddamadan hadda jinsiyadaha la qaato tagto ama yurub ama carabaha tag ninkii waddanka u dhashay waxaa ka dhib badan kan mutajaniska ee qaatay iska yeelyeelaya midka iska kaankaanka ah baa u dhib badan ama si kale aan u dhaho luqadii hore ee soomaaliga mutajanisi aanan dhihine dhaladka sheegadkaa ka dhib badan bay yidhahdeen haddaad yurubtaa tagto ninka caddaanka ee waddanka u dhashay hadduu ayaboodka iyo migrationku qaabilo inuusan ku dhibin baa laga yaabaa laakiin midka waddanka tegay ee baasaboorka qaatee laga shaqaalaysiiyey ninkaasi waxaa weeye si uu isu caddeeyo shaksiyadiisa u sugo adiga naftaynu kuu keeno wey wuu ku cadaabayaa wax yar oon macno lahayn bu maanta o dhan kaa iska dawadeejin isku kalsoonaan la-aan baa haysata carabahana waxay dhihi jireen kuwa taabiciyada haysta baa ugu dhib badan sheekh maxamed saas mihe haddaba sidii ba weli haddana ilaa haddana carabta ku nool sidii wayadeen weligaaba qowmka ninka isku dhadhajinaya ugu dhib badan nimankani ummadiibay qasab inay kaga dhaadhiciyaan aalubeyd inay yihiin bay rabaan walidalika doctor xasan isandubi kitaabkiisa taarikh ixtifaal bilmawlid nabawi safxada 63 wuxuu leeyahay ninka muciz lidiin illaahi ahaa walama istaqara lahu lxukmu akhada yufakiru fi lwasaa'il lkafiilati bistimaalati lquluubi wamtikalaaki nufuusi markuu xukunkii meeshii qaahiro qabsaday buu wuxuu bilaabay inuu ka fikira dadka seed usoo jiidataa ood isugu soo xirtaa markaasuu wuxuu leeyahay ilaa ummadda reer mas xataa ta'lafa alummatu lmasriyatu tasarufaata hadihi alxukuumati aljadiida watardaa can siyaasatiha fi idaarati lbilaadi si looga raali noqday dadka waa inuu soo jiito wuxuu leeyahay walamaa kaanat almuyuulu alcaamatu liطabaqaati اlummati almasriyati markay ahayd guud ahaan reer masar ay ahaayeen mutajihatan ilaa xubi aali beyti rasuuli maca alictidaali fi tashayuci lahum iyagoon ka badbadin waxay aada ugu badnayd aalu beytka in la jecel yahay ra'a almucizu lidiin illaahi ana aqraba alasbaabi lilwusuuli ilaa agraadihi min hada almayl alcaam inuu arrimo diineed sameeyo halkaasay ka tustay markaasuu acyaadan iyo ixtifaalaadkan sameeyey waxaadna ku garan cali xasan xuseen faatimatu zahra innaga waa awliyada lagu tawasula waagii hore faatimatu zahra inaguma jiri jirin soomaaliya haddaan nahay lakiin hadday bilaabatay hadda gabay soomaaliya aan dhegaysanayey xadra soomaali ah oo alif baley ah waa soomaaliya wey oo faadumo rasuul foolka nuur badanay laleeyahay tii firdowse joogta ay gacanta noo fidiyey tii firdowse joogta ay gacanta noo fidiyey baaski iyo bidcada baalka nagaga dhufo laleeyahay baan marba markaan ka sheekeynaya shirkiga qasaa'idka soomaalida baan inta af soomaaliga shirkiyaadkooda soo gaari doonaa kor markaan kasoo bilaabo markaasaan bandhigyo badan idiin samayn doonaa insha allahu tacala oo maqal iyo muuqaalba leh calaa kulli xaal warka markaynu soo ururinno saasaynu leenahay waxaynu leenahay dawladdaasoo 210 sano jirtay masar ka jirtay oo 357 ka dhalatay oo timid 567 ka zuushay oo dhimatay baa 362 aasaastay kadibna markay 20 saniya ka badan ay sii maqan tahay baabaaday bay Irbil iyo meelaha la midka ka bilaabatay hadda masalada taariikh ahaan ma ka hadlayaa qaybta waa qaybta koobaad in sha Allah ta'ala kalimadayda caawa qaybta labaad ya maadaama isa Allahu akbar caawa waxaynu ka gaarno qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa kitaabkeenan mawliidkee la akhristo maxaa ku qoran lan cajam baan nahay oo carabiga ma naqaan horta kitaabkii mawliidkee la aqrinayay waa kan ninkii yaqaanaa yaqaan waxaad maqli jirteenna waa idinka dhex maqashiin doonaa kitaabka waxaa la yidhaahdaa majmuucu mawlidi sharaf alanaam wuxuu ka kooban yahay gudihiisa markii aada u dhaadhacdo
mawlid ulbarzanji oo nathri ah iyo mawlid ulbarzanji oo nadmi gabay ah qasiidat lburda adciyatu khatmi lmawlidi caqiidat lcawaami raatib lxadaadi talqiinu lmayiti ducaau nisfu shacbaana mawlid daybici intaasuu kitaabkani ka kooban yahay sidaa uu u kala horeeyo baan idin taabsiin doonaa maxaa meesha ku qoran waxaa ka mid a waxyaabaha ad ku garanaysaan qaybtan waa waa qaybtii catiraadka qaybtii catiraadka catir allaahuma qabrahu lkariim bicarfihi shadiyi min salaatin wa tasliim halkan ay ka bilaabataa sabxada 72 waana mawlidulbarzanji ee nahriga ah wey halkaa wixii ka dambeeya cabaar markii la wadaba halkana waxaa la leeyahay catir illaahuma qabrahu lkariim bicarfi shadiyi min salaatin wa tasliim intaa dhexda aada marayso waxyaabihii aad taqiinay waxyaabaha ad ka arki karta waxaa ka mid a marka laga sheekaynayo siirada iyo waxa lamidkaa yaa nebi saalam calayka yaa rasuul saalam calayka yaa xabiib saalam calayka salawaatullaahi calayka waa ku qoran tahay waa idin gaarsiin doonaaye waxa ku qoran ma maqasheen ninkii badda iyo biyaha dabaashay isagoon dabaal aqoonin baa ninkaa dabaal inuusan aqoonin buu erey kooban ka bixiyey wuxuu yidhi dabaalxumada heriquu ka bilaabay buui meeshii bilowga ahayd buu dabaalxumo ka bilaabay badweynta hadduu gala maxaad u malayn safxada 3 ka bilow asalaamu calayka taaha yaa abiibi asalaamu calayka yaa miskun wa abiibu asalaamu calayka yaa maaxi dunuubi nabigaa lala hadlaya alayh salaam asalaamu calayka korkaaga nabadgelyo ha ahaato yaa maaxi dunuubi kii dembiyada dhaafi jirayow dembiga yaa dhaafo ilaahay sowma dhihin waman yakfiru dunuuba ila allah yaa dembi dhaafoon alla ahayn haddiise qof lagu yidhaahda isagaa dembiga dhaafa soo ilaahnimo laguma sheegin maxayse markaa islaamkii allah keliya dembi dhaafa qabay iyo kaniisadihii baadariyadu wax dhaafi jireen ee bini aadamka ah maxay ku kala duwanaanayaan kow waa shirki masaladaas intaa kuma gaabin maxaa ku xigtoo jiri assalaamu calayka yaa cawna alghariibi ka hariibka kii u gargaari jirayow assalaamu calayka axmed yaa muxamed ilaa aakhirka assalaamtiisa kow wuxuu ka bilaabay shirki nebi maxamed baa dembiga dhaafa nabiguna alay slam wuxuu ina leeyahay inii la astakfiru llaha fi lyawmi 100 mara 100 jeer baa ilahay dembi dhaaf weydiistaa ilaahayna wuxuu leeyahay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina maxaa ka dambeeya isagaaba loo dhaafayaa dembigii halkana wuxuu leeyahay ood ilaahay ku caabudaysaa ood khayr iyo cibaadaad ka dhiganaysaa assalaamu calayka yaa maaxi dunuubi nabigii dunuubta tirtirayayow halkaa shirkigu waa cadya safxada 4 tag meel dheer baha aadin baxsadadka ugu horeeya assalaamu calayka yaa jaali lkuruubi kii kurbada faydayayow ilahay wuxuuna yidhi aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu xumaata yaa fayda ma allah baa fayda mise cid kale ambiyada soo nabiga lama dhihin waxaad tidhahdaa qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila اllah aayadda iyagoo qeybka la sugayo soo lama dhihin uusan waxba ka ogeyn walow kuntu aclamu اlgayba lastakartu min alkhayri khayrkaba hadduu gacanta ku haya badsasho muxuu uga baahan yahay hadda nebi maxamed baa waxaa lagu leeyahay yaa jaaliya lkuruubi kurbada kii faydi jirayo waa wixii allah lahaabaa nabigiibaa maqaamu luluhiya la geynayaa meel dheer adoon aadin safxada 6 tag haddana hal mar un rog khata nooc kale ah meeshan ku qoran oo wuxuu leeyahay xusein ibni cali iyo xasan wakada alxasanayni khayr اlcaalamiina caalamka ilaahay abuuray xataa ambiye lagama reebin xasan iyo xuseen baa ka khayr badan xataa ambiyadii aw
laa nebi ibraahim walaa nebi muuse walaa nebi ciise masaladaa masale sahlan maaha guluwigu halkaa hadduu gaarana khatar wey safxada 7 sadarka 1 u gudub waa kuwii ishaarayaa una wax badan oo kaga dheeraada waxyaabaha khaladka iska cad in mara lagu qarin karin carabigan aan ku fasira igaga filan waa kay dhaan culimadu dhikruhu yughni an raddihi in la sheegaa kaaga filan inaad waa khalad tiraahdo khayru man wati athara al-mushaffa'u fi al-wara man bihi hullat ura kullu 'abdin mudnib arada wax ku istaaga nabi maxamed buu tilmaamaya salaam illa waxa ku horeeyay الصلوات على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير من وطئ الثرى دولك كل استاكي وخير بدنا المشفع في الورى خلقنا الشفاعة دي سلو أقبل انت صحوي من نبي به إساقا حل اللفرفري عرى كل عبد مذنب أدونك استوى دنبابه إساقا لغو فرفورا لغو دقا haddii isagaba dambiga dhaafayay soomaa hadda saad soo martay kurbadana fayday meel dheer ba hasii aadina safxada 8aadna tag haddii aad dhimato dambaabto naarta yaa kaa badbaadin kara nabi maxamed ma kaa badbaadin karaa naar intuu ahlu beydkiisii shiriyey yaa macshara qurayshin yaa banii fulaanin yaa banii fulaanin kaasuu wuxuu yihi yaa safiyata camata rasuuli illaahi wa yaa faatimata binta muxammadin أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا نفتيس النار نفتينا النار كبد بادي إلى حويني كما تريكرو ساسو فقارب بنانا كيري هل كان فريد إيجي سمرك وحيري يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصبي نجنا نقبد بادي من هاوية نار تلوها بني نقبد بادي نار يكبد بادية قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب إلهي با كرب إيا النار يوحل بكفة بدبادية وصفحة مركز سديدات بان مريا وحوغي بودو 710 بان تغينا شيكوينك خرافات يا بانتا وحبا هذه سوون مشغولين مايو إذا كوان آبا كوان انتن عد بابا كاغا فلان كتابك ويوم قيام الناس يبعث أول فجد يا رسول الله منك برحمة لعبد أسير بالذنوب يقبل فجد كدق يا رسول الله منك برحمة النحريس كدق لعبد أسير أدان الله قفاشي الله هيستو بالذنوب يقبل ذنوبته ليمت نوجد يقبله أدان ذنوبته أن الله هيستاي وتي همزية أنكو أركضون إن شاء الله تعالى إيضنا مركلوا صفحة 9 سي ودي وحو كدقاقي بلايا لكن سنتيدو إن لا يدين فسر أو باهن وحا لا يراده ويه الحقيقة المحمدية أما النور المحمدي لقيسه وحوليه مركب قيل لما أراد الله عز وجل إلهي مركي أدوري وحال يري ظهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد إنه صوت ظاهره أمر جبريل أن يقبض طينته من مكان قبره الكريم عيد نبي محمد لقى أبوري هل كقبر جيساء لقى سوقاضي مسألة وابين آدم بعيد لقى أبوري انت كالدتك من ماء إيوه دافق بلقى أبوري نبي محمد عيد قارو الله سوقاضي مجرت بينوي لكن وحسوس على كدرا فقابضها ثم طاف بها جنات النعيم انتو عيدي قاضي بو جنوينك سو ودا ارسيو سو مري هاي غمسها في انهار التصنيم عينا التصنيم تعيشي هيد با لا سو دخمريي واقبل بها بين يدي الله العظيم الهي بان عيدي لهور كاني ولها عرق يسيل عيدي ديد با كدا ايي بوري marka halkan way halkay dibku ka bilaaban doona haye فخلق الله من ذلك العرق ديدك waxaa laga abuuray نور كل نبي جليل نبي كستا نور كيسال كاسا laga abuuray فجميع الانبياء انبياء داني خلقوا waxaa laga abuuray من نور محمد صلى الله عليه وسلم لا عليكم دغيستيدك انبيادي waxaa kamid ah آدم نوى أبكي بشريته إنه محمد كميديا آدم من النور كنا محمد بالغ أبوري وماشي ككينين
odaygii aabbaha iyo hooyaday iyagoo ishukaansanayaan anoo subxaan yaa dhex maray wayba ku dhaleynay si adoo noo dhex martay midna wuxuu yidhi ayaydaydii tobnaad anaa qabi jiray ayaydayadii tobnaad anaa qabi jiray waxagee ka keenay waxaan soo maqashay nebi maxamed aakhiru zaman buu yimid aadam buu ku abtirsadaa aadam ka horna wuxuu sii maraa ibraahim ibraahim kadibna wuu sii maraa xatman nuux inta kale hal isku qaboodsada haddii la rabe saddexdabana uu ku abtirsanayo quruunta ka horreeyey kumayaalka sano isaga nuurkiisaa laga abuuray iyagaana dhalay nuurkaygaa lagaa abuuray adigaana i dhalay sheekada ma aragtaan khalqi macnaheeda waxaa weeye ambiyadoo dhan aday kaa iqtibaaseen nuurkaaga cilmiga aday kaa qaateen laa min allaahi min maai abiihim wa ummihim laga abuurin min nuurika laga abuuray waa masalada xaqiiqa muxamadiya nuurka nebi maxamed baa uunka dhan abuurka asal u awey isagay ka soo wada jeedaan masalada aakhirka waxay gaadhsiisay uunka dhani waa hal nuur oo wejiyo badan yeeshay haye nuurkaana waa nuurka dunida maamula alxaqiiqa almuxamadiya wax walba maamusha uluhiyay halkaa ka gashay waxdatulwujuud iyo xuluul iyo itixaad meeshay ka timid halkaa wey waxaas wey waxaad ilaahay ku caabudayso ead aqriyayso markaan safxada 27 tago khuraafooyinka iyo beenta badan ee dhexda ku jirtana aan iska daayo wuxuu leeyahay shariicadeenu axkaam bay leedahay dhegaysta arkaanul islaamku waa imis shahaadada maxaa ku xiga salaada maxaa ku xiga soonka zakada iyo soonka xajka xajka xaggee loo xajiyaa ma makaan loo xajiyaa mise qabriga nabiga loo xajiyaa dhegayso wuxuu ku leeyahay ina ru'yatii ina xajii wa cumratii ru'yatii rawdata almaqaami ina xajii aniga xajkayga iyo wa cumratii cumradaydu ru'yatii inaan arka weeye rawdata almaqaami beerta meeshii aad ku nagayd inaan arka ani xaj iyo cumray ah laa makaani ahayn walaa kacbaan ahayn walaa caraf baan ahayn walaa musdelif baan ahayn walaa minaan jirin xajkayga iyo cumradaydu waa meesha inaan arko ishaydu ku dhacdo xaj iyo cumro waan haystaa marka anu lama yaabin markuu nin wadaad ah nin suufiya oo soomaaliya soo xajiya annagoo arday jaamacad ka dhigana meesha 4 dilxije iyo haddii dilxija kuu bilato xujayda madiina inuu gudbaan looma ogola dhulka ku timaada ama jiddo ka degta bacd alxaji hada la leeyahay hadda waqtiga ciriiriya waad ka daahaysaan way soo celiyeen show isaguba wuxuu u yimid ba xaj uma soconina fiisa xaj buu soo qaatay qabrigu u socday carafoon hadda khaymada lahayn oo kulul bay qoraxdu ugu dhacday markuu kululaaday ee meeshii qiiqi ku rafaaday buri ikhwaano ina soo dhibeen anuu halkan buu ma soconin moogtay qabriga nabiga u soo xajiyay ninkaasi ninkana isku meel ahaayeen ina xajii wa cumratii ru'yatii rawdata almaqaami way ku qorantay waa safxada 27 kow ma joogo aan kaa boodboodsiiyo 38 igee صدن يتلح تضبط مركان مريا وحان مريا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صدن يلح بك باللعبطة انت كذا بيسان وجودك صدن يسديتك ملك وحولي انت للرسل ختام سلام عليها الكل يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وي نن انت واخرنا يا انغنا kooxda weyn hal ku dhigay qaadayaan ya nabi salaam alaykan qaadayna isna tan uu qaadaya waxa la inoo qaadaya dhageyso waxa kamid anta lirrusul khitamun anta lil mawla shakurun abduka al miskin yarju fadlaka al jam al ghafir fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhiru فأغثني وأجرني يا مجير من سعيري يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور يا راسي سلام عليك وقال يسعدك محان أخري وحن أخري أنكون معنا يا مرك وحولي أنت أذيقوا للرسل ختام الأنبياء وعلى ما يسترتي وركا واسح سوما
أنبياء هذا ودن بي أنت للمولى شكور الله نمد آدو شكريات هاي أنت صحوي لكن محاكا بي عبدك أدون كاغي يا أدون لو يهبيش وركا صح مياه نبي محمد با وحال لي أدون كاغي بانا ما أدون ما الله بانا هاي مس أدون ما أنبياء بانا عبدك المسكين أدون كاغي مسكين كا يرجو حرجين يا فضلك ديرات كاغا الجم الغفير اي وين بدن فيك أديك قد أحسنت ظني ملاهيك كوناتي يا بشير يا نذير كي بشاريه دغيو فاغثني اي غرغار واجرني اي بدبادي يا مجير كي بدبادينيي من الصعير نار تصعير كبدباديو يا غياثي غرغارها يغيو يا ملاذي كان مغان غلايو في مهمات الامور ارمها واوي بالله عليكم هذا شرك ام توحيد وكا واحد قادان مركو انت كو اخري يعني جدبيسنتها اديك مرقانسنتها يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك كو هيسا اسنا وحو كليهي فاغثني واجرني يا مجيرو من سعير يا نبي سلام عليك maxaad u qaadaysaa intaad leedahay qaadaysa ma xuma nabiga inaad ku salido laakiin salligan waxaad camiraysaa nabi maxamed baan adoommo u nahay isagaa naarta dadka ka badbaadiya isagaa inoo gargaara isagaa la magan galaa wey waa intii sifaadkii xuquuqda ilaahay lahaa wey waxa weeye waxaad akhriyaysaan mawlidka ee lagu leeyahay nabigaa lagu sharfayaa nabi ma waxaa lagu sharfaa addoonnimadii ilaahay lahaa adaale in la yidhahdo oo xuquuqdii ilaahay la siiya isagu intaa u dagaalami jiray inta uu la dagaalamay ilaahay in loo khaalis yeelo safxada 59 baan hadana ku geeyay in badan boo kale aan ka boodi qaybaha dambe waxaan malaynayaa nadmiga iyo marka la gaaro ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu inoo sheegay jinka iyo insiga uu abuuray muxuu abuuray wama khalaqtul jinna wal insa halkan dhageysa marka warka duwan baa meesha yaal safxada 59 sadarka koobaad iyo labaad wuxuu leeyahay hada an-nabiy alladhi lawla jalalatuhu lam yukhlaq al-khalq la jinnan wala bashara isaga weynankiisa haday jin iyo insi toon lama abuureen jinka iyo insiga rabbi abuurtay cibaado u samaystay oo insigu aadamaha ka horeeyay إلهي بالقرآن كل شيء والجان خلقناه من قبل آدم كهر هذا نوح إليه النبي محمد هدو صناهين ما بلا أبورين لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بان برده وتجد وانا يسقنا وهل ورقض رجل اللي حدا يكوتك هذانا أرى يكسو على العلم دون وحوليه هي لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح وداء الفؤاد الذي بسيف الهوى قد جرح أيا مدعي حبنا دع الروح ثم اطرح تعلق بأهل الهدى وقل للعدو استرح ألا ولي قلب من حبكم على بابكم ما برح ألا يا نبي الهدى أغث من بذكرك يصح ألا يا نبي الهدى نبي هرونكو أغث وحدو قرقارتا من بذكرك يصح أي يصيح كل واقيا النقرة محانا أخرنا صلاة إياك نعبد وإياك نستعين إلهي من قرقار ويدي سرنا نبغى نمركم ابن عباس يلدر دار ما يحولي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت قرقار هذا ضباهته فاستعين بالله هل كان يحوليه يا نبي الهدى أغث من بذكرك يصح انت كما الديني لحذن يلا بنا واكسو عليي ألا يا نبي الهدى أغث من بذكرك يلح كعل علينا وقرقار مسألة هذا وحى الأخرية إنسان إخواني شركي بابوحة markuu beydka 65 yimid isagana wuxuu leeyahay 65 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم انت مركي لقاد وحال لقادا كوا لقادا كونا كمده في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم في الحشر شافعنا محمد حشر الله يسوق أنا دتك ناحد أنه شفاعة قاضي ومقام المحمود كين تعروي منجي الخلائق من جهنم خلق جهنم ساكبت بادية جهنم دتك يا كبت بادية هو إسكاله معمولة الله بقى معمولة بس أنبياء معموش مركو قبل يستفادوا وكل يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت حولها يقول حربتي ويديس لا أغني عنك من الله شيء لا يحبك ما اختاري كرو كان وحليه يا منجي الخلائق من جهنم خلقه لن يسقى جهنم كبد بادية ورتوحان آخرنا قيبي كواسع كمدة مركا قيبتها صدان قيبها سان كقبحي قيبها سنت عدان كقبحه قيبها كان إن شاء الله تعالى تكملة هذا هي قصائد كلام مديحة قراءات عن كسر بينه هي مسألة حكمكم إن شاء الله هين دمان ما يستري دونا عون هالكاسن كديننا وصلى الله عليه وسلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك